السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان صحابة الكان يقدر ونسمع البوا شوفتان يسول بمقالكيو ومركز يسوع قريب مقالك وحندون يا إن كجا حلو دور قضب ومركز اللي حريره ضد عن دوان لا يشيء لكمل عيسى هذا عبد إفتين ولي بقضب بدي وإنكري أي دون يا إن مركز أمد أن لو داعو وحي وإنكري يولي بعدمها اللي حريره arrimaha si uu inkiray waxaan rabaa inaan mar kale u bada xasuusiyo waxyaalaha uu ninkan inkirayo munaafaqada laba wajilanimada iyo waliba sida uu doonayo inuu umada ugu dhaxnoolaado ayaan rabaa mar kale inaan umada u bayaamiyo waxaan sidoo kale aan soo helay laba qodob oo kale oo ayaguna kamida waxyaalihii xasaasiga ahaa ee uu dhawaan ninkan u sheegay kooxaha cunsuriga ah oo uu horay oga hadlay laakiin si la yaab leh oo markaasi mar kale isaga hor iimaanayo marka bal arrimaha kala duwan ayaynu muuqaalkan bal aynu ku fiirin doonaa isoo dhawaad meel uu joogtaan isolba muuqaalkiigu marka idin soo gaariyaba waa 18 December 2025 waa markii ugu horeysay maanta hawada ku kulmayno aan mar kale idin ka codsanayaa inaad channelka subscribe gareysaan si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya oo halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad u mahadsantiin inta aanan qodobada u galinin ayaa waxaan doonayaa inaan idin sheego platformkii aynu ku doodeynay platform anigu aan leeyahay ma ahan waa platform niman odayaal ah ay markaas mas'uul ka ahaayeen ayaga su'aalaha qaybinayay ma aysan ahayn meel aniga asagu aynu waxaynu doonays oran karno iyo arrimahaasi marka waxaan ku qasbanaa inaan raaco nidaamka dadka maamulka ee hogaaminaya programka ay markaas doonayaan in loo wajaho arrintaani taasana waxay sababtay inaan cadeymihii aan watay ay suura gali weyday in meesha markaas lagu soo bandhigo arrimo xagga technicality-ga markaas la xiriira marka taasi waa inta ee qodobka ugu horeeyo aan doonayo muuqaalkan inaan kaga hadlo ayaa waxay noqonaysaa gafaf waaweyn oo ninkan horay u galay isla markaana aan ku jirinin eedemihii aan markii hore ninkan aan ku oogay laakiin uu asagu markaasi dib u soo celiyay laakiin arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay inuu isla waxyaalahaasi gafafka ah oo uu horay u galay isla markaana uu yiri waan ka toobad keena inuu maanta inkiray oo uu weligeyba ma oranin ragoo dhan nabiyo wada noqdeen waxa leedahay adigu saas ma oranin aniga saas ma dhihin waxaas waa edit toos la soo sameeyay YouTube 100 video ku jirto because God is God, you know, doesn't matter what name you give him, but he's the same guy or she's the same woman, you know. I know Barbara is like, what are you talking about? Can you say that in Somalia? No, I can't. But I'm just trying to show you how open I am. I'm so tired of every prophet being a man or every God being a man, you know, stuff like that, when woman is the one who gives birth to us. So that's my just little Somali, little radical stuff. I guess. I know most of my friends don't agree with me on this, but... That's true. Andy, this is a convention of radical people here. I love it. Yeah, yeah. leeyahay xan ku daalay in ilaahiyada aysan xaliyada ay niman yihiin subhanallah oo dumar u ahaan waay sidoo kale uu leeyahay waxay nabiyadu ayaguna ay dumar u ahaan waayeen iyo arrimaha la midka marka toobadiisii hore maxay noqonaysaa hadii uu inkiray gafafkii hore uu ku dhacay su'aasha culimada ayaan u deenayaa iyo dadka diinta yaqaan sidoo kale ninkaani uu inkiray aayadaha markaasi ka hadlaya dhaxalka hadii aabuhu uu dhinto wiilku dhaxalka meequu leeyahay iyo gabadhu dhaxalka meeqay leedahay wuxuu leeyahay xisaabta meel laga keenay ma garanayo leeyahay waana arrin loo baahan yahay in lagu laabto oo ay dadku ka dhiskaas gareeyaan wuxuu intaa ku darayaa inuu Ilhaan Cumar uu waraaq u diray xilliga uu ku yiri waa in arrintan wax laga bedelaa oo maxaa la sameeyaa waa in gender equality la helaa buu leeyahay gender equality waxa soo hosgelaya qowmaloodnimada marka 7 sano ka hor ayuu Cabdi Iftiin u diray Ilhaan Cumar ta uu maanta ku eedeynayo qowmaloodnimada iyo inay xisbiga qowmaloodka taageera ay ka tirsan tahay ayaan 7 sano ka hor waraaq u diray buu leeyahay oo aan kala hadlay inay ka shaqeyso gender equality-ga isagoo sidoo kale to meesha ka saaray beeniyay ayadaha ka hadlaya dhaxalka asaguna waa kanaaye bal daawada. In this case, how we see women in Somalia is I don't even know how we came up with this number in Somalia, where if your father dies and you have one daughter and one son, the son takes more than half of the inheritance, where the woman gets way less than that because she's a woman. So that's we need to come over, move on from that, debate these issues, and it begins
I don't think it's going to begin with men, but I really think women has to start this process. I wrote a letter to Ilhan and I met her and I said, I agree with so many things that you're doing, but you really need to look at this issue and have some women organizations going on and let's talk, write books, write articles, get the word out, talk about equality, gender equality out there, which I think we need to aim at the next generation, young Somalis rising up. They don't. marka wuxuu beenayo waa aayado quraan ah waxa uu doonayo in lagu bedelana oo uu ololeynayana waa qoomaluudnimo iyo gender equality way waana ninka maanta ka caraysan ilhaan maxaa qoomaluudnimadeeda gaalanimo loogu fasiri waay anoo asaga u sheegay xataa qofku inuu qoomaluud noqdo diinta islaamka looga baxo laakiin asagu wuxuu lahaa ma ayadan la yiraahdo diinta way ka baxdo marka muuqaaladaas waa muuqaaladii uu yiri waa la ididgareeyay muuqaalo la ididgareeyana ma ahan laakiin waa muuqaalo uu toobadii uu ka toobad keenay uu dib uga laabtay ma garanay xunka ay qaadanayaan arrimahaas culimada ayaan weydiin doonaa haddii aan la yiraahdo intii aynu maanta waraysiga ku jirnay ayaa ninkan 100 jeer oo kala duwan ayuu marba iska hor yimaaday oo hadalkii uu daqiiqadii 10aad yiraahdo ayuu daqiiqada 11aad haddana u beenaynaya wuxuu yiri weligay jaajuus ma noqonin waa la igu nabayaa daqiiqad yar ka bacdina wuxuu yiri weligay hal mar baan wax jaajuusay markaysaan marka ninkaasu waa Cabdi Iftinkii maanta ay to qaylinayay isla markaasna dad badan oo Soomaaliyeed ay ka daba guuxayaan oo leeyihiin qabiil bal lagu ceyrsanaya waa ninka sida uu hadalkiisu uu markaa isku yahay wuxuu sidoo kale uu yiri ninka cunsuriga ah ee uu saaxiibka la yahay ee Steve la yiraahdo inuu san ahayn nin cunsuri ah uu san Soomaalida nabcayn ayuu sheegay ana oo Soomaalidu nacab yahay wuu inkir arintaasi Donald Trump asaga wuu u codeeyay waa Republican ciidan male dal xur ah joognaa laakiin cunsurinimada in dadka la cunsuriyeeyo waa ninka soo horjeedo wuxuu kale ka soo horjeedaa ninkaas uu leeyahay Soomaalida ma dhibca bishan December oo kaliya inta jeer uu Soomaalida mashaakil iyo dhibaato uu ku sameeyay iyo sida uu Soomaalida uga dhigtay amal isla markaasna uu yahay mid ka mid ah dadka Soomaalida ugu daran ayaan idin la wadaagayaa 6 saacadood ka hor xilligan muuqaalka aan duubayo ayuu ninkaas wuxuu soo qoray postigan oo postigan wuxuu ku sheegayaa in Ilhaan Cumar oo dhawaan hadashay oo tiri Soomaalidu dhaqaatiir iyo aqoon-yahano ayaa ku jira ayuu challenge gareynaya wuxuu leeyahay Dr. Cabdullaahi ninka la yiraahdo ee Soomaaliga ah oo ka mid ah dadka uu asaga iyo Cabdi Iftiin bay ku eedeynayaan inay lacag boobeen oo ilaa haddana aan cadeyn loo hayn maxkamadda aan la soo taagin kana mid ah dadka gobolkaasi Maine ku dhaqan dhakhtar ma aha buu leeyahay shahaadana ma haysto meel uu dhakhtar ka qaatana ma naqaano marka inuu ninkaas u dhakhtar yahay ayuu diiday yahay waa nin la yaqaano jaamacada ka baxay professional ah cid walba ay taqaano inuu xataa shahaado haysto ayuu xaqiraya haddii aysan arrintaas nacayb ahayn cunsuriyad ahayn arrintaas maxaa lagu fasiri karayaa adinkaan idin deenaya 15 bishan aynu ku jirno ee December ayuu sidoo kale wuxuu website-kiisa uu ku soo share gareeyay isla qoraal kale uu ku maagayo Soomaalida gobolka Maine degan isla markaasna uu musuqmaasuq uu ku sheegayo asaga website-ka ka shaqeeyo qoray isla asagii ayaana soo share garanaya oo barta X-ka markaas ku soo share garanaya hoos markii aad u socoto 12 December markaad aragto isla Cabdullaahi irkii ahaa ayuu asaguna haystaa hoos markaad u sii socoto 10 December markaad fiiriso wuxuu leeyahay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waa inuu shidaalka Soomaaliyeed ee khayraadka ah dhulka ku jira uu xoog uu kula soo baxay uu qaataa oo lacagtaas ay markaasi ay noqoto midii ay Soomaalidu ay boobeen waa in midaas lagu bixiyaa midii ay Soomaalidu ay boobeen marka khayraadka cayriinka ee Soomaaliya ku jira ayuu wuxuu ninkan Trump u sheegayaa in lacagtu ay Soomaalidu ay qaateen laga jaro shidaalka Soomaaliya la qabsado ayuu faraya ninka weyninka uu leeyahay cunsuri ma aha Soomaaliya iyo Soomaalidana ma dhibca hoos markaynu u sii socono xataa marka aad fiirsan December 7 aniga ayuu i haystaa oo muxuu leeyahay Xuseen Jaamac iyo Cabdi Iftiin wuxuu ugu hanjabay buu leeyahay inuu dilo mana Cabdi Iftiin ugu hanjabay inuu dilo warkaysa waxaan hubaa haddaan waxba dilaya aan oran lahaa iyo dil aan ka hadli lahaa codkayga la fasiraha meelaha la geyn karo bal la geyn lahaa laakiin aniga aan ba ahaynba qof bini aadam ah la dilo dadka yiraahdo Ilaahay baan ka magan gal marka waa ninkaas la Xuseen baa yiri Cabdi Iftiin hal la dilo waa ninka faafinaya waana hadalkii Cabdi Iftiin maalmaha wareejinay waa leeyahan jabay asagii Cabdi Iftiin wuxuu ninka u sheego kaasa drive gareeya waxa la wuxuu ka u sheego Cabdi Iftiinna ayda af Soomaaliya ayda af Ingiriisiba ayuu meelaha ka sheega ninkaasa faraw ah ma aqaan xiriirka kala dhaxeeyay waxa uu yahay doodii xalay ninkaas aan la yeeshay oo ka baxday Brit Somali TV iyo Maraca Showba hal su'aal oo ninkaas aan weydiiyay kama uusan jawaabinin
hal su'aal aniga i weydiiyena inaan ka jawaabi waayo ma aysan dhicin su'aal ba imuusan weydiin maxaad gaal ii leedahay buu ka dhamaan waay adaa kufriyay ninka ilaahay caayo uu gaaloobaya ninka ambiyada caayo uu gaaloobaya ninka aayadaha quraanka beeniya uu gaaloobaya intaas baan ugu iri toobadiina waad ka laabtay marka qofku uu gaaloobi kara xataa isagoon ogeyn buu gaaloobi kara laakiin waxa loo baahan yahay qofku markuu qalad ku dhaco dee inuu ka laabto ka toobad keeno markaysa ha gaalaysiin wax ma gaalaysiiyo qof aanu ma gaalaysiin karo laakiin ninka ta soo istaaga yiraahda ilaahay ma jiro ama qofka yiraahda ilaahay muxuu ahaan waay dee dabcan uu gaaloobaya ma mas'alo debatable ama taayta san kale waxaan kala rabaa inaan idin sheego waxa ii soo qoreen Xuseen waad caraysanay aad bad u caraysanayd bal so do you think inaan u qoslo ninka ilaahay caayay kaambiyada caayaya ninka aayadaha beeninaya ninka cunsuriga la socda ummadeena beenta ka sheegaya jaajuuska ah kala hadlaya inaan la qosla tartiibiya maya anigu muraafiq ma ahay dhabba iga taha inaan diinta iyo ummadaba aan difaaco wixii karamkayga aanan ku xadgudbin sharciga dalka u yaala aanan cidna dhibaato u geysanin ayaa waxaan xurriyad u leeyahay freedom of religion shalay gobolka Texas la yiraahdo kitaabka quraanka ayo doofaar baa la isku garaacaya bah la isku siinay masaajidka hortiisa muslimiintii daawanaya maxaa markii la yirina ilis America la yiri freedom of religion baa jirta anaguna marka waa inaan freedom of religion aynu diinteena ku difaaci karno oo kan ku soo xadgudbay waa saqarjana oranayna way been buu sheegaan oran karna way jaajuus weeyaan oran karna way markaysa qaar baa ku hayay ereyga jaajuusku waa dambi ciidamadii ICE ee Minneapolis dhibaatada ka geystay ayaa public waxa loo sheegayay inay argagixisan yihiin markaysa it is freedom of speech marka waa freedom of speech way waan hadlaynaa sharciga dalka gudihiisa ku dhaxalaynaa annagoo aan ka bixinin diinteena iyo dalkeena iyo ummadeena ku difaacayna markaysa marka ninkii inta ka baqayo ayaan anaga ka shaqeynaa hawshaas intaasaan ku soo koobaya inta dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay sayno dino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh